Lo yellow فوصلوا وبراني رجعي وكاسو بالعني بالشرق وبالغير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. لن يروا كل laga soo bilaabo 1999 wax badan oo fara badan baa qaldamay, wax badan ayaa dhacay oo kol walba in hadii la yiraahdo waxaas baa dhacay, keer baa dhacday, kan baa dhacay, waxaa dhacay, sidaas dhacday, wax la soo koobi kara maaha. balse waxaa haboon in la yiraahdo bal wixii oo dhan guud ahaan sideen u xalinaa oo maanta ugu gudubnaa oo beritoole aan ku naaloonnaa waayo wanaagsan iyo waqti wanaagsan. waayahay Soomaaliya kuwii 90kii cid aan isgaarin ma jirto oo aan dagaalamin. waa qabiil bay la isku laayay, qabyaalad yani waxa heerkii waxay ugu dambeeyay bay gaartay. dawlad baan helay ku meel gaar ah, alxamdulillah in yar waa yara dhaannay. dawlad kale aa timid oo aan ku meel gaar aan ahayn, ku meel gaaradii haddana waan dhaannaa, waan ka wanaagsanaanay. laakiin waxbaa jira, nabarkii weli wuu jiraa. waayo shalay kuwii qabiilka isku dagaalay oo labada qabiil islaynaysay ahaa baa maanta hal maaragtay golihii wasaaradda ku wada jira ama golihii baarlamaanka ku wada jira. haddaba dhibaatada taale maxay tahay? nin qabiil oo qabiil kale ku xumaynayo ayaa qarannimadii u galaysaa, maxaa la yidhaahdaa, loo wiiqayaa qarannimadeennii. يعني رأي بالكينيا برلمانكي مثلا نبى رأي كينيا arrimaha laga hadlaya waxaas ma jiraan ayuu leeyahay, isagoo aan eegin aan dhageysanin ra'yigaasi wanaagsan. wuxuu ku diidayaa kaliya hebel oo reer hebel ka soo jeeda oo shalay aan islaynay ahaan ayuu maartay wixii qaranka ku hagaagi lahaa, ku dhismi lahaa oo maartay ra'yigiisi ku lidinaya oo ku lid ku noqonaya. si looga gudbo arrimahaasi xalkii daawadii nabarkan intan ayna haysata wuxuu ahaa in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah, in la sameeyo oo Soomaali ay isku timaado. Soomaali kolkay isku timaado oo qabiil walba qabiilka kale xataa iska daaya qabiilada qaarkood dhexdooda ayaaba isdagaalay, islaayay, wax kale iska daa. يعني هيرك اللي جاري جاهل لماذا هيرك اللي جاري وهيرك قدام بيسي وسببها أو شيئها إنه جفا إذا استقرب وكل هذا دل كنا وحضر كيسا قولي برلمان كوجرا وعويان سفارتها أيام لوجيرا سفارت كميدا أيام لوجيرا أما إسقى أما يجوا كوحة تضبط كبير مرينا تلاقي كوشرا ويعني محارب هالتدرس كان وحويان قبائل يعني قبيالتي بقى الشيء هبل أو رير هبل أيابا مدح إدين أهل يري أهل جرّاري سداب ومركا إدين الحكومة يعني سفارة داس إتجايان ودن كي كل كورة كي مدينة للشدي سوق قاتل أهان بيو تجان هاو تجان وحيو تجان وحن لوجو من سياسة دي دلك أياب اللي فلان قياس سفارة ده غير كود يا فلان قينا كي سياسة وذيه جامنة أما شرعي سميه أما شرعي فليه أيابا معرتي أجانب كي لحي دينا أما الدولة هبل با وضطا أما الدولة حيكير با وضطا هبل با دور شقلايو دولة هبل با وضطا ورما الدولة دا كبرت ما يوش الشيء دلكينا يعني دور شذا كقيب قلايا مس إنك أيا دور شذا كقيب قلاينا دلكي سوا ودلاني دلكي كسوتك حلكن dib u heshiisiinta ah adduunka wax badan baa ku hagaagay. ruwaanda kolka aan soo qaadano maati baa la xasuuqay, wax kale iska daa. innaga maatida waaba ka xishoon jirnay Soomaalida, waana ka xishoonaa ilaa imikana oo birmageysan niraana oo birmageytada
يعني dadka aan birta yani aanba dagaalka aanan qabanin ayay ka mid yihiin xataa haddii qoladii lala dagaalamayay laga adkaado oo gudaha loo galo maati lama taaban karo odayaasha oday dhaqameed lama taabto macallimiinta dugsiyada lama taabto yani waxaa la yidhaha birimageysa la yidhaahdaa dadkaasi halka laakiin Rwanda walaa birimageysa iska daayay mid yani uur hooyadiis ku jira ayaa lagu dhex dooxay wax kale iska daa heerkaas ay gaareen maantana way ka heshiiyeen oo way isku yimideen maxaa inaga inoo diida inagoo islaam ah oo muslim ah maxaa inoo diida inaynu isku nimaano oo aan heshiino oo dalkeena inoo hormaro maanta dalalka Afrika dalalka ugu horumarsan ayay ku jirtaa Rwanda miyaynaan arkayn annaga ma aragna miyaa waxaa ka socda Rwanda ka socda annaga ma aragno iyo qaabkii ahaan jirtay ma xusuusanno iyo sida ay iminka tahay ma aragno aan baraarugna aqoontii waa inay baraarugtaa dhibaatada waxa weeye aqoontii ayaana baraarugsanayn aqoontii waa inay baraarugtaa aqoon-yahanow baraarugo u istaag dalkan oo dalkan ha hormaro horumarkiisii ma ahan keenaan samaynaynaa aasaaska aan ka bilowno dib u heshiisiin aan samayno horta kolka hore dad heshiis ah ayaa wax wada jiidi kara oo meel gaarsiin kara inagoona heshiis ahayn oo cid walba urtuntii shalay qaba xumaantii shalay yani uurkiisii ku taalla ayuu maaragtay issoo hor fadhiisanaya ilkaha unbaa waa laisku dholo caddaynaya waa been dholo caddayn been ah weeyaan reer hebel soo ma aha warkiis kuma jiro reer war soomaalinimadii ha midoodo soomaalinimadii ha dhalato oo soomaalinimadii dib ha loo soo celiyo war shisheeyaha wuuba doonayaa tafaraaruqan sidaana dhexdeena wuu doonayaa hebel baa idiin xukuma hebel iska tuura adeerkiis baa shalay ka ahaa keer ahaa war waxaas waxba laguma jeedo aqoon-yahanow u baraarug dalkan u istaag meel walbaad ku dhex jirtaa golihii shicibkaa ku jirtaa golihii sharci fulintaad ku jirtaa meel walbaad ku jirtaa oo dugsiyadii jaamacadihii baad joogtaa dalkan u istaago war u baraaruji dadkan inay maaragtay dib u heshiisiin aynu wada samaysano oo dalkeenna aan jiidno aan wada jiidno dusha sare heer sare aan u jiidno halkan aan ku hayno waa halis qarannimadayna ayaa halis ah waxa shidaal aan leenahay waxa macdan aan leenahay beeraha aan leenahay xoolaha aan leenahay kalluunkeenna oo maalin walba la iska gurto malagacni la iskaga qaato oo ixsaan lagaga hayno weliba doomaheenna doonta kalluunka doonta la burburiyo shabaagtii laga jarjaro yani dhibaatooyinka socda miyaydan arkayno miyaydan ku baraarugsanayn waxaas waraan baraarugno dad isku duuban cidina waxba kama tari karto cidina waxba kama qaadi karto shisheeyaha usoo hanqaltaagaya dad isku duuban markuu arko waxba ma samayn karayo ilaa waxa ay doonayaan inuu yeelo mooye isaga ra'yigii u watay wuu bedelayaa oo qasab wuuba ku qasbanyaa adduunyada qaacido ka dhacda way dunida ka jirta qaacidada ugu weyn ee dunida ka jirta ee dhacda waxay tahay qoom haddii uu cadaalad darro ku sameeyo ummadda uu hogaaminayo wuu rogmaa qoom caad qoom thamuud qoom fircoon qoom shucayb qoom muusa waad ogeedeen dhibaatooyinkii qabsaday fircoon dhibaatooyinkii qabsaday kolkii cadaalad darrada uu ku sameeyey reer bani israa'iil yani kasoo bilow yani boqor barxuu raage kasoo bilow boqor barxuu raage boqor bucur bacayr geedi baabo boqor heybe boqor fayla aaro boqor nasiib buund yani boqoradaasi kolkeedna wax sameeyeen cadaalad darro sameeyeen waa qaacido absolutely ku qoran dunida ee jirta waaba qaacido aan laga bayri karin oo aan laga weecan karin qaacidadaasi ciddii ka weecanta way rogmani un cadaalad darro weeye waxaa looga weecada cadaalad darro haddii aad samaysid waa xukunkaasi wuu rogmay haddaa cadaalad samaysid ilaahay xukunkaas wuu la jiraa wuu soconayaa sare u kacayaa aqoon-yahanow baraarug halkaas kusoo koobaynaa barnaamijyadeenna casharadayna way noo socdaan kan waxa weeyaan isbaraarujin aan isku baraarujinayno in dalkeenna ka dhaco waxa la yidhaahdo dib u heshiisiin dhab ah ay ka dhacdo ilaa dib u heshiisiin ka dhacdo tafraaruqa unbaa jiraya federaalka waad aragteen oo waxaa laga dhigay qabiil baa laga dhigay ma qole hebel baa
يعني مقولة هبل بقى وتوصف فدرالك معني سبيل ما فاهمين معني لو سمي معنا أنا هنا لو قلت لغما ما أنت هبل نوما إيمان كرم هبل أمتجينا إنك واحد لقاح الشوذ وياه عن مذونه من دماغ واحد كون أكسن مجران أو من قرى أن نقونه حنكون نقول كرنا أقونتي وين براروتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.